madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka qayb galay shirkii degdeg ahaa ee shan wadamada jaamacadda Carabta kaas oo ka dhacay magaalada barakeysan ee Makka. sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo gaar ah la qaatay madaxda ka qayb gashay shirkaasi ee Carabta kaas oo kala hadlaya arrimaha la xiriira Soomaaliya. Abdulqaadir Jakarta ayaa soo koobaya wararkaas oo dhan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo ay yeesheen dalalka ku bahoobay jaamacadda Carabta. kulankaas oo ka qabsoomay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ayaa waxaa boqorka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Cabdulaziz oo isugu yeeray dalalka ku bahoobay wadamada jaamacadda Carabta. kulankaas ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay dhibaatooyinka xilligan ka jira dalalka Carabeed qaarkood iyo si loo gudbi karo. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo gaar ah la qaatay madaxda qayb galaysa wadamada Carabta qaarkoodna ka socda shirkaas. agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo kamid ah wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku sugan magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa sharaxaya kulamada madaxweyne Farmaajo uu qayb galay magaaladaas. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada casho la soo dhaafay ku sugnaa magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo isugu yeeray boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdulaziz. shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban jaamacadda Carabta waxaa lagu lafaguray amuurihii u dambeeyay ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka jaamacadda Carabta. shirkan intuu socdayna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulan doceedyo la qaatay ninka haatan hogaamiya maamulka ku meel gaarka ah ee Suudaan sareeyo guud Cabdulfataax al-Burhaan. wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheekh Abdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Qatar. madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulamo la qaadan doonaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weli dalkaas ku sugan ayaa la filayaa in saacadaha soo socda oo sidoo kale kulamaha la qaato madaxda wadamada jaamacadda Carabta ka socda ee ka qayb galaya shirka ururka iskaasiga Islaamka oo saacadahana soo aadan ka furmaya magaalada Makka al-Mukarrama ee dalka Sacuudi Carabiya. warbaahinta dowladda Kenya waxa ay baahiyeen in garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta maalnimadii Isniinteeda lagu qabtay lacag lagu qiyaasay inay gaarayso 1.7 milyan oo dollar oo uu watay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka sida ay baahiyeen warbaahinta. wargeyska caanka ee kasoo baxa dalkaasi Kenya ee The Star ee kasoo baxa Kenya ayaa shaaciyay in lacagtan oo gaaraysa 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta habeennimadii Isniinta. lacagtan ayaa la sheegay inuu leeyahay sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda Soomaaliya oo aadna ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu daabacay wargeyska. wararka ayaa sheegaya in lacagtan ay markii hore ka timid dalka Ethiopia waxaana watay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka. ilo kala duwan ayaa sheegaya in lacagtan la qabtay uu watay Cabdilaahi Kulane oo kamid ahaa saraakiisha NISA kuna dhow madaxweynaha Soomaaliya sida warbaahinta Kenya ay baahiyeen. sarkaalkan ayaa la sheegay in habeen ka hor laga celiyay garoonka Jomo Kenyatta xilli uu doonayay in gudaha u galo magaalada Nairobi. talaabadan ay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya kaga mamnuucday dalka Kenya in la soo geliyo xamuulka aan cidna la socon ayaa la sheegay in ay ka dhalatay kadib markii la qabtay lacagtan. ma jirto ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Kenya sida laga yeelayo lacagtan gaaraysa 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku qabteen garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. maamulka Puntland waxay dalacsiyeen saraakiil sarsare oo ka soo goostay Somaliland kuna soo biiray maamulka Puntland. wasiirka amniga ee Puntland Galad waxa uu sheegay in xubnahan ka soo goostay Somaliland ay in muddo ah ka dagaalamayeen gobolada Sool iyo Sanaag oo ah meelaha hadda deegaanada ay labada maamul ay ku muransan yihiin. waxa uu sheegay in xubnahani ay garwaaqsadeen in ay ka mid noqdaan sida wasiirka amniga Puntland uu sheegay in deegaankooda ay difaacaan. waxa uu sheegay in la dalacsiyay
oo dalcad dhanka darajada ciidanka ah la siiyey xubnahan saraakiisha kuwaas oo tir ahaana gaarayay ilaa 3 xubnood iyo weliba ciidamo ay wateen gaadiidka dagaalka. waxay ii tahay maantay maalin aad u farxad badan oo ku soo biirtay taariikhda Puntland. waxaynu ka wada warhaynaa Puntland waxa ay dhisan tahay muddo ka badan 20 sano. waxaa jirtay taariikho adag oo ina soo maray, laakiin maanta waxay ina ilowsiinaysaa ama ay ina hilmaansiin kartaa taariikhihii madooba ee Puntland soo maray. waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inay tusaale u noqon doonto gobollada kale ee ay Somaliland ku hayso dhibta sida gobolka Sool iyo Cayn in la dalacsiiyey saraakiishii ay ugu horeeyaan taliyihii guutada 93aad ee ciidanka Somaliland gaashaanla dhexe Xuseen Faarax Aadan waxaa loo dalacsiiyey gaashaanla sare. sidaas la mid ah gaashaanla dhexe Cabdirashiid Axmed Jaamac oo ahaa taliyihii guutada 116aad waxaa loo dalacsiiyey gaashaanla sare. gaashaanle jaamac cabdi geesood oo ahaa taliyihii ururka koowaad ee Dhahar iyo Soonaheeda waxaa loo dalacsiiyey gaashaanla dhexe. maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa wali waxay ku muransan yihiin deegaanada dhaca gobolada Sool iyo Sanaag halkaas oo xiisadooda ay taagan yihiin labada ciidanna isku hor fadhiyaan. xubnaan ayaana ah xubno ka tirsanaa markii hore maamulka Somaliland saraakiishooda si yeeshee ka soo goostay gobolka Sanaag deegaano kamid ah ay muddo ay ku sugnaayeen. xildhibaan kamid ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu madaxda sare ee dowladda federaalka ku dhaliilay in ilaa iyo hadda ay ka hadli laayeen gafafka bareerka ay u geysanayeen Soomaaliya wadamada Ethiopia iyo waliba Kenya. Ahmed Tifo Yasir Misri. dowladda Soomaaliya ayaa wali laga sugayaa jawaab adag in ay ka bixiso dowladda wadankaasi Kenya iyo Ethiopia qaladaadka ama gafafka ay u geysteen qarannimada Soomaaliya, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay dhowr jeer ka hadashay laguna dhaliilay sida ay uga jawaab celisay gafafka labadaasi dal ee diriska. xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in aysan ahayn mid loo dulqaadan karo khaladaadka ee dowladaha diriska ee Soomaaliya kula kacayaan, waxaana uu sheegay in waajib ay ka saaran tahay madaxda qaranka in ay si adag uga jawaabaan dowladaha Kenya iyo Ethiopia. yalla xasuustaa in khariidada qaaradda Afrika gabi ahaanba ay ka baabi'isay Soomaaliya kuna darsatay dalkeeda, halka Somaliland ay ka dhigtay dal madax bannaan oo qaaradda Afrika ka tirsan. sidoo kale waxaa xusid mudan in maamulada Somaliland iyo Puntland ay ka dhigtay dalal caasimadooda ay ka dhigtay Garowe iyo Hargeysa, kaasoo u muuqday mid bareer ah. waana laba maalin oo isku xigta oo dowladda wadankaasi Kenya ay galayso khaladkaasi bareerka ah. dowladda wadankaasi Kenya waa Ethiopia aan idhaahdee Kenya ayaa iyana wada dhaqdhaqaaq xoogan oo ku aadan in cadaadis ay ku saarto dowladda Soomaaliya ka laabashada dacwadda badda ee taala magaalada Hague ee wadankaasi Holland, waxaana ay hadba soo saareysaa go'aano ka dhana Soomaalida iyo ganacsigooda, iyadoo xusud ay mudan tahay tii ugu weyneed in ay ahayd markii wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya loo diiday fiisaha in loogu dhufto si ay hore uga galaan dalkaasi Nairobi, waa magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Aadan waxa uu sheegay in madaxda qaranka looga fadhiyo in jawaab adag ay siiyaan dowladaha dariska ah, haddii kale ay noqon doonto mid ka adag oo xaalad xun ay gasho qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya sida uu yiri. mararka qaarkood waa aragteen dhacdooyin baa dhacaya, dadkoo dhan baa Soomaalidu dhan baa banaan baxayso ku farxaysa. Sooma dhacdooyin baa hal ama laba ama saddex ama group waxay sameeyeen. waa maxay? waa dhiirigelintii, yani waxay ka arkeen iyagii baa muraayad isku fiirshay, waxay Allah ilaahay waa nimanka qofkaas waxa iyagii soo dhigay soo bandhigay. haddii dhinaca kale aad difaaci weydid u hadli weydid waqtiga ku habboon tahay ayaka aad kiiskooda ama qadiyadooda banaanka soo dhigi weydid, waxa ay niyadda ka rabaan haddaad sheegi weydid waa dishay dadkaas, waa niyad jabayaan dadka in iska celin maayo. haddii awlgeysiyana xataa fuliyay noqonayo oo fiirsada. muhiimadda ah maa la hadlo oo madaxda dalku ka hadasho arrintan muhiimaddaas ay leedahay. marka wax yar maaha hadba qofka mas-uulka ah siduu u maamulo siduu u dhaqmo baa dadku noqonayaan
waxa weeye maamaada carabiga ahayd oo annaasu calaa diini muluukihim annaasu dadku waxay qabsadaan sida hogaankoodu yahay xataa diin hadday noqoto diintay qabsanayaan ay hogaankoodu soo noqdo maqlaysaa marka annaga dadka soomaaliyeed dad nool weeye maalin walba waxaa isku dira waxaa hoosgeeya waxaa karaamadoodii iyo qabkoodii baabi'iya waa dadkii madaxda u ah oo maxay saa u yeelayaan dadka madaxda ah waxay u yeelayaan kuma kalsoona dadkii soomaaliyeed waxay ku kalsoon yihiin qofka ajnabigaabay ama ka baqahayaan ama xurmaynahayaan ama leeyihiin wax yar baa meeshaas ku yaalayaan lagaa xayirin ma maqlaysaa ya ama guri baad ku leedahay ama madal baa dhowr sarood gooya iyo xoogaa lacagoo meel taalla ma gooyaa dal iyo dad isagaa lacag iyo haddaad rabtid guryo iyo isagaa aad ka dhisanaysa anugu haddaan maanta ku leeyahay hantida ugu badan Kenya ama Ethiopia ku leeyahay ma lagama yaabo inaan Soomaaliya u dilo ama waa ka dhaqaaqi lahaa ama waxaan ka qaadan lahaa markii aan arko xaaladdu sayta oo sirta ogaado hadalka xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Aadan ayaa ku soo aadaya xilliga gafafkii bareerka ahaa dowladda Itoobiya ay raaligelin buuxda ka bixisay iyadoo dowladda waddankaasi Kenya ilaa hadda aysan ka hadlin gafafka qaranka Soomaaliya ay u geysatay. wararka kale ee Soomaalida ka baxsan warka ku jira waxaa kamid ah dowladda Turkiga waxa ay duqeyn diyaaradeed ee ku dishay xubno ka tirsan jabhadda PKK ka dagaalanta dhulka ama dowladda Turkiga deegaanada ay gacanta ku hayso diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa weerar xooggan ku dilay 19 xubnood oo ka tirsan maleeshiyadka kooxda PKK ee ku sugan dhulka Ciraaq wakaalada wararka Anadolu ayaa tabisay in militariga Turkiga uu beegsaday saldhig dagaalyahanada ay ku leeyihiin gobolka Kurdiska ee waqooyiga Ciraaq howlgalkan ayaa ka dhanka ahaa waxaa lagu soo qabtay sidoo kale 4 kamid ah dagaalyahanada PKK sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Turkiga ayaa u sheegay Anadolu in howlgalkan uu socday 4 maalin lagana yaabo in la kordhiyo howlgalkan oo lagu beegsanayo kooxda PKK ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo waliba Turkiga ayaa sidoo kale burburiyay baqaaraha hubka lagu keediyo oo ku yaala gobolkaasi ee waqooyiga wadankaasi Ciraaq ugu dambeyn dowladda Ruushka waxay sheegtay inaysan ku lug lahayn ama ay aaminsan tahay in dowladda Ciraaq aan ku celiyo ugu dambeyn dowladda Ruushka waxay sheegtay inaysan Iiraan wax lug ay ku lahayn weerarkii ka dhacay xeebta ee Imaaraadka Carabta ee lagu weeraray markab uu lahaa dalka Sacuudi Carabiya dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaysan aaminsaneyn sheegashada in la tuhmo sheegashada la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton ay ahayd in Iiraan ay ku lug leedahay ama ka dambeysaba weerarkii bilowgii bisha lagu qaaday markab shidaal ee uu leeyahay Sacuudi Carabiya arbacadii shalay ahayd oo shir jiraad uu qabtay Bolton ayaa waxa uu sheegay in weerarkii 12 bisha lagu qaaday markab fujil yiraahdo oo ka dhacay xeebaha Imaaraadka loo adeegsaday miinooyin ama bambooyinka lagu farsameeyo dalkaasi Iiraan